mid ka mid ah qurbajoogta ku nool dalka dibadiisa oo magaceeda la yiraahdo Khadiija Cali Qaasin ahna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ururka Samo ayaa waxa ay baaq nabadeed u dirtay beelaha ku wada dagaalamaya tuulooyinka hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ayna ka codsatay in dagaalkaasi la joojiyo dhanka kale waxa ay baaq u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare uu ka yahay Mudane Xasan Cali Khayre waxa ayna ka codsatay in dagaalkaasi soo farageliyo waxna laga qabto waatan Khadiijo Cali Qaasin ahna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ururka Samo oo ka hadlaysa arrimahaasi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. anigoo magacayga Khadiija Cali Qaasin ahna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xisbiga Samo Democratic waxaan halkan ka cambaareynaya dhibaatada foosho xun leh oo ka socoto Soomaaliya waxaan halkan aga sheegayaa madaxweynaha Mudane Farmaajo in ay dhibaato fara badan ka jirto gobolada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Jubbada Sare, Jubbada Hoose inta ay degaan jareer weyne Soomaali Bantu ay degaan dhibaato aad u foolxun ka jirta waxaan leeyahay dhibaatadaas oo muddo socoto oo hadda especially ka socoto jowhar dad nool lagu gubay nolosha guryahoodii la gubay ciyaalkoodii la gubay ildarskoodii la gubay ayaa meesha aan ka aragnaa sidaa darteeda waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo waxaan ugu baaqayaa dadkaas la gubay dadkaas la dhibaateeyay oo dhibaatada loo geystay aan waxba galabsanin oo guryahoodii lagu soo weeraray miyaynan dawladda waxba ka qabanaynin fiiro gaar ah loo yeeshto dadkaas dhibaatada lagu haayo oo lagu gubay guryahooda oo la soo weeraray tan kale waa in la tixgeliyaa dawladda ay tixgelisaa dadka memberka ka ah oo jareer weynaha ah oo ka tirsan dadka ka tirsan dawladda sida gabadheena Daawasuuso Maxamuud way ka hadashay arintan wayna ka dhidhisay arintaas waa in wax laga qabtaa wiilashan isku dhax oo meesha dagaalka ku soo weeraray waa in la hadlaa oo laga fariistaa arintooda sida uu dhaqsaa badan degdeg ah sababtoo waxa way dagaal wiil kuma dhashay wiil ku dhinto dagaalkan haduu dheeraad oo xumaado dhibaato badan soo galayso saysan u dhicin in laga hortago dadkan dhibaatada ku jiro oo dhibaatada haysato oo maanta guryaha lagu gubay oo ilmo ku jiraan dad yar iyo dad waaweyn loo dhan yahay oo tuulada laga barakiciyay maalin walba waxaan maqalnaa dad la gubay ma ka dhicin adduunyada dad la gubo dad nool oo la gubo adduunka kama dhicin marka maanta dad muslim ah hadana marka diintana waxba loo dhimay haddii dad nool la gubay diinta waxba loo dhimay haddii dad nool oo macnaa si gardar ah lagu weeraray waxba loo dhimay walaalayaalo waxaan nahay dad diin wadaaga ee diin ka dhaxayso dawladna ka dhaxayso wax walba ka dhaxayaan haddii ay dab ka tahay arintan dawladda federaalka ay wax ka qabowayso ya dameerka jidka socdo wadada leeyahay marka dadkaas loo galay dad ay leeyihiin marka waxaan dhihi lahay arintan ay ka dhidhisay xildhibaanadeena Daawasuuso Maxamuud in fiiro gaar loo yeeshto oo arintii la galo oo dadka laga dulqaado dhibaatada haysato meelay daadsan yihiin dawladna waa tihiin dawladda federaalka ah haday arintan waxba ka qabanin annaga dadaalkeena aan dadaal ku dareena biidnaahay karim waana idin sheegi doona waxyaalaha dhibaatada badan oo faraha badan oo soo naqnaqday dhibaatada faraha badan oo soo naqnaqatay waa in wax laga qabtaa waxaan leeyahay arintaas waxa laga qabto
dowladda federaalka la hadlaa mudana farmaajo madaxweynaha la hadlayaa waxaan la hadlayaa inta xildhibaan oo ku jirto baarlamaanka waa inay isku naqdaan waa in dadkaas arintooda loo istaagaa biidilaahi kariim waa in loo istaagaa sababtoo ah dhibaatadan way sii balaaraneen hadday balaaratana wixii dhacay iyo wixii hadda oo dhici doonaba meel ay yeelanayaan biidilaahi kariim sidaa darteeda waxaan leeyahay arintan hala galo hala ogaado dadka masaakiinta culeyska iyo dhibaatada lagu hayo laga qaado dhulkoodana faraha looga qaado annaga dhulkeena farahana laga qaado annaga webiga jiinkiisa annaga iskale annaga nagu yimid Somali Bantu Jareer Weyne Samo iskale dhulkooda waa naga badan yahay Soomaaliyeed dhulka waa naga badan yahay hadda Soomaalina dhulka waa naga badan yahay marka xaqiraada iyo qorwaytada nagala haayo anaga laga dulqaado uma adkaysanayno intaan ka badan uma adkaysan karno mana u adkaysanayno gumaysi daboolan ma adkaysanayno dawladda ka jirta meesha dawladda waa inay talaabo degdeg qaadaa ay tixgelisaa gabadha xildhibaanada sharafta u hadashay oo mudnaanta leh hadalkeeda in la tixgeliyo haddii aan la tixgelin waxaan u qaadanaynaa waxba dooran maayo aloo dhagaxay soo taadi marka dhibaatadan waxaan jecelahay inuu ka qabto mudana farmaajo dhibaatada ka jirto shabeellada dhexe meelo badan waa ka dhacday marka tana ugu xoog badan tanna waxay noqonaysaa biidilaahi kariim ama tii ugu dambaysa ama tii bilaawga ay noqonaysaa biidilaahi kariim kulay wax walba dhamaaday leeyihiin bilaawayna leeyihiin marka intay goor tahay arintan waxa laga qabto taasa ku baaqi lahay anaga hadii aan nahay Jareer Weyne ama Somali Bantu ahna xisbiga Samo Democratic marka saasa idan dihi lahay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhanka kale Khadiijo Ciise Xaaji oo ayadana kamid qurba joogta Soomaaliyeed ahna siyaasi horay uga soo shaqeeyay dawladii Maxamed Siyaad Bare oo ayadana baaq u dirtay beelaha ku wada dagaalamaya tuulooyinkii dhawaan la gubay ee hoos imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ayna ka codsatay in dagaalkaasi la joojiyo dhanka kale waxay dawladda federaalka Soomaaliya ka codsatay dadka ka soo barakacay tuulooyinkaasi in dib lagu celiyo guryahooda loona dhiso waxa ay dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay in ay dagaalkaasi faragelin waayeen waatan ayadana ayadoo ka hadlaysa Khadiijo Ciise Xaaji Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waa Khadiijo Ciise Xaaji waxaan rabaa maanta in aan ka hadlo labadaas toobi oo kala mid aan labada toobiba waxay ka turjumaanayaan laba eedeymo midna aan beesha aan ka dhashay ku eedeynayo midna aan ku eedeynayo dawladda Soomaaliya markay doorasho dhacayso waa yaqaaniin dibeedka sida ay ku soo galaan waa yaqaaniin sida axdigana uga baxaan koob midaas waan ku cambaareynayo dawladdan hadda inta ay dhisan tahay gobolka aan ka soo jeedo dad badan lagu laayay kamana ayaan hadlin tuulooyin badan lagu gubay dawladda kama ayaan hadlin waxa yeelay wax la dilay jareer leewayno wax ay ka damqadaan ma laakiin maanta haday ahaan lahaayeen dad iyaga ama beel hubaysan ay ahaan lahayd of course waa ka hadli lahaayeen laakiin maanta kama hadlayo dawladda Soomaaliya waxa soo jeedinaya ku codsanaya oo ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo inta wasiir iyaga ay doorteen kuleyba waa dad iyagu isku maslaxa dad iyaga saaxiibo ama wada cunno waay waxa codsanaya in labada marood meel isku dagaasho cooska ku shiid dadka masaakiinta ah way ku dhex shiidmeen teeda kalena dagaal idinka dhaxeeya ma baahanba mid aan aniga aaminsanahay dagaal ma idinka dhaxeeya hadduu idinka dhaxeeyna shan laqdabaad ku heshiiseen maanta Ilaahay ayaa iskugu imaateen anaga waxaan codsanaynaa dad beeraley oo masaakiin xoolo dhaqato in aan guryahooda laga barakicin waxa dhacday Shabeellada Hoose in dad laga soo barakiciyo maanta ay xamar ku dacdareysan yihiin
guriyooda yaa qaatay nobody knows cidda qaana ma laha guriyooda cidda qaadatay shabeellada hoos hoos xaaqdeen xamar isku keentay maxaa rabtiin ilmahooda jidka inay joogaan kabaha idin caseeyaan nimankana ay suuq bakaaraha gaariyada idin kaga soo riixaan because khawaaji marka aad tahay wax kasta kula gudboon adika adduunkaad u soo qaxdeen oo ceerka dawarsanaysid oo leeyihiin caawinaadaan rabnaa daadaan ugu soo fakaday kan baan ugu soo fakaday daacuunaan ugu dhacay waxbaan ugu dhacay abaaraan hayso inaan xabadaad dadka kaga leynaysid taas dawladda Soomaaliya ku xambaaraysantii toogsin shiixaysid marka runta idin sheeg ko dadkii masaakiinta ahaan waa soo barkicinaysiin beerahooda iyo guryahooda idinka qaadanaysiin way dhowr sano 2011 ilaa ay hadeertaan dadka soo qaay xamare wili ku dacdaraysiin wili dadka waa soo socdaan beledkooda marka aad ka soo burisiin kadaashooda iyo digoo guryahooda iyo qaadanay yaa u haysiin dawladda Soomaaliya waa ku haldantay dadka soo barakacay dawladda haday run sheegayso meeshooda ha ku celiyaan dadka mashaariicda abaarta oo maalin kasta Soomaaliya iyada abaarta ay iyada arkaysan hanaga joojiyaan Soomaaliya maalin kasta abaar xiisa anaga dadkeen abaar bana qabato wabiga hadii asguru xataa biyaha siriiskaas anaga hadii cabna maslaxan ku qabna markii idinka wabiga atiis ku soo badateena biyaha xataa in gure dawladda Soomaaliya runta marka ay disho أحسن سمية بتكان أنا بقول أنا الله ديسي هلو علي تولو ينكوذ بتك تولد جوباي هوك دولد كجوباي الدولد وقت خارة وحين يضرر لك التحول هؤلاء شغال هوك الدولد دتك هوك كل عاوي أوكي كوريك لقى خاطر خفك كخاتم جرومينيست مركب ربشاتي هنوصل بشانينا مرنا هبلوها مرنا هبلوها حاليا لقد بدأ ذيك الصومالي كودين عدد كجريس كودين كنا في الدولة الصومالية قال هان مسج كان حاول دراية دولة الصومالية ومدحوينها اللي هو رئيس الوزراء اللي هذا يسوي جواب بدون تين هذا يسوي جواب بدون هذا يسوي جواب تين أم سؤال يقول دي سنة ولي جواب بأذن هلايا قبجوك تكون ولدك دبديسا يا باقا دريان ayaa waxa uu ku soo beegmayaa gobolada Shabeellaha Dhexe xilli uu ku soo noqnoqonayo dagaal beeleedyo oo ay kamid tahay tuulooyinkii dhawaan la gubay oo ay kamid ahayd Kulmisyerow Baghdad iyo Jameeca Misra maahan markii ugu horeysay ee baaq caynkan oo kala ay diraan qurbajoogta ku nool dalka dibadiisa Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Juba Shabeelle News magaalada Jowhar